sidoo kale production wala haddaad ka cusub tahay subscribe saar like saar commenti mahadsanid maanta waxaan wadaa barnaamij ku saabsan Soomaalida gaalowday ama ciise masiixi aamintay inuu ilaahay u yahay barnaamijkan waxaan kaga hadlayaa siyaabo fara badan oo ay ka tahay diin bedelashadu ama diin ka bixidu qofku isagoo ku dhashay diin xaq ah tii wanaagsanayda tii diimaha la soo dejiyay ugu dambeysay waayo suu ilaahay sheegay wuxuu yiri diin nabi walba waxaan ku fasakhnay ama aan ku bedelinay diintiisii nabi cusub iyo diintii cusub laakiin isku diin ay yihiin inka ciise muuse maxamed alayhi salaatu wasalaam hal nabiyin bay waxay ahaayeen nabiyo hal diin bay wada xambaarsanayeen balse waxa la oranayay nabiga nabigu ka dambeeyo waxa loo soo dhiibo lagu dhaqmayaa sida awadeed dadkii saa ahaa ee Soomaaliyeed ee ka tagay Geeska Afrika ama Djibouti ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama Xamar iyo Muqdisho ha noqoto ama Gaarisa ha noqoto ama Jigjiga ha noqoto waxay sameeyeen inay qaarkood gaaloobaan oo ay noqdaan Kristaan oo ku faantamayaan waxaan nahay Kristaan xaqiiqatan aanu saamaysanahay waxay dileen cirdigii iyo sharaftii Soomaaliyeed waayo gaaladu waxay noo taqaanay ama dunida oo dhan bay noo taqaanay wadanka qura ee ah 100% muslim balse iminka kuma faani karo kuma dhaaran karo inaanu nahay 100% muslim sida awadeed inaan faafiyo arrintan ma jeclaysan balse baa isoo gudbiyay ana waxaan sameeyay markaa hubitaan inaan ku sameeyo waxaan soo gudbinayna wax xaqiiqsaday ay yihiin sida awadeed waxaan sameeyay inaan maanta barnaamijkan idin soo diyaariyo waxaana la socon doontaa insha Allah isagoo muuqaalo fara badan oo leh waxaanu ilaahay nabi ciise alayhi salaatu wasalaam hadaladoodiina waan idin maqashiin doonaa waa gabdho Soomaaliyeed waa wiilal Soomaaliyeed afkooda markaad u fiirsatid waxa weeyaan waxay leeyihiin ciise waa badbaadada waa ciisaha waa ilaaha nool haddana waxay wataan saliib oo waxaan qoorta lagu xidho dadba wax si yaqaan qaar baa yaqaan maskal dadba yaqaan saliib dadba yaqaan mucatab waxaan u samaysan qaraamada ah isku talaabta qoorta wada wataan sida laajigeed ama awadeed waxay ku leeyihiin waxaan aan wadano nabi ciise baa lagu dilay oo ilaahay ahaa markay hadlayaan waxay ku oranayaan ciisaha nool ilaaha nool sida awadeed waa hadalla aan iswaafaqayn oo aan iska qabsanayn meel taasina waxaan leeyahay ilaahay xaqaha ku soo hanuuniyo dhamaantood innagana ilaahay wanaaga iyo khayrka hayna sunaysiiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan oran lahaa u soo duceeyo walaaliheen Soomaaliyeed waayo isku afbaynahay isku isir baynahay isku dhaqan baynahay balse iminka diintii baa noosaa inay naga bedesheen wax la bedeshana diin baa ugu xun waayo adoo muslim ahaa inaad gaalowdid ifkana sharaf la'aan baad kaga dhimanay aakhirana cadaab baad ku mutaysanaysaa sida awadeed Soomaalidu waxay oran jirtay intuu 20 jir tala ka boodo bugeed ka boodaa marka dadkan aan soo sheegayo ma aha 20 jir ma aha 12 jir waa dad kor u dhaafay 40 garaacaya marka ma oran karo digaradii baa haysa oo dhalinyaranimo u geynaysa mana oran karo waa dadkii ku dhashay qurbaha oo waayo iyagu waaweynba way gaaloobi karaan kuwaas maxaa yeelay wadamada ay joogaan diinta haddaan si fiican looga dhaqmin waa diintu awood lahayn way gaaloobayaan mushkiladaas ma aha macnaheedu ra'yi ahaantayda waayo qofkii ma aragday meel diin la isku xukumayo ma arag meel ay diintu ku xoog badan tahay barka soo kale diintu waa dhaysan karaysaa laakiin haddaan ku dhashay Xamar ama Hargeysa ama Jigjiga ama Djibouti ama Gaarisa oo Soomaali leedahay waxaan ila tahay waxa igaalaysiinaya waa khalad ilaahayna waan ka magan galay inta gaalowdana Allah soo hanuuniyo inuna ilaahay quluubteena hamidayo kuwa isjecel walaaltinimo leh qadarin leh sharaf leh cid iyo maamus leh ilaahay ha inaga dhigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. mahadsanidin.